kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiin meel walba dunida ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan wararka caalamka kuwoodii ugu door corona waxaa ka mid noqonaya hadduu rabbi idmo heshiiska Israa'iil iyo Xamaas oo dhaqan galaya axadda soo socota iyo gantaalo laga gamay ama laga tuuray Yemen oo gaaray markaasi caasimadda dalka Israa'iil sidoo kale barnaamijka daawadayaal waxaad ku maqli doontaan iyadana gantaalo iyo sidoo kale diyaarado duqeeyay magaalada Kiev ee dalka Ukraine oo qasaaro xoog leh gaarsiiyay dalkaasi ayaan barnaamijka idinku hayaa sidoo kale barnaamijka waxaan idinku soo gudbin doonaa madaxweynaha Iran iyo Ruushka oo markaasi heshiis wada saxiixday sidoo kalena ka hadlay arrimaha Suuriya waxyaabaha ay isla soo qaateen ayay kamid barnaamijka ayaan daawadayaal kuugu soo gudbin doonaa sidoo kale war farxad leh ayaa ka soo yeeray guddiga horumarinta markaasi arrimaha caalamiga ee UK oo ka hadlay markaasi aqoonsiga Falastiin barnaamijka ayaanu idinku soo gudbin doonaa Turkiga oo dalbaday in markaasi guud ahaan argagixisada laga ciribtiro Suuriya barnaamijka ayaad ku daawan doontaan sidoo kale qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaan barnaamijka daawadayaal idinku soo gudbin doonaa hadduu rabbi idmo haddii aad ku cusub tahay markaasi subscribe noo saar oo saaxiibadaada la wadaag marka muuqaalada halkan aan idinku soo gudbino waadna ku mahadsan tahay daawashada iyo la socoshada wararkeena haddii aynu ku bilaawno markaasi Israa'iil saakay waxa ay sheegtay in gantaalo laga soo riday dalka Yemen ay soo gaareen caasimadda dalkaasi iyadoo markaasi qaarkood laga hortagay qasaarana aysan sababin gantaaladan laga soo riday Yemen ayaa markaasi waxa riday ururka Xuutiyiinta ee ka dagaalama dalkaasi Yemen oo markaasi caasimadda dalkaasi gaarsiiyay waxayna sheegeen in markaasi la qabtay gantaaladaasi iyadoo wax qasaaraha uusan sababin iyadoo magaalada caasimadda iyo Qudus laftigeeda laga maqlayay dhawaqa markaasi loogu talagalay digniinta ee markaasi ay isticmaalaan ciidamada Israa'iil kuwaas oo sheegaya in ciidamada markaa ay ka hortagayaan gantaalo cusub oo lagu soo riday sidoo kale waxaa maalinta axadda dhaqan galaya heshiiska dhaxmaray markaasi Israa'iil iyo ururka Xamaas ee ka dagaalama dalka Falastiin ilaa iyo 3 waji ayuu leeyahay ayaa wararka qaarkood ay tilmaamayaan in markaasi heshiiskani uu noqonayo 6 toddobaad ee ugu horeyso waxaa heshiiska la sheegayaa in markaasi la sii deyn doono Xamaas sii deyn doonto 33 qofood oo la haystayaal ah kuwaas oo markaasi loo gudbin doono dhinaca iyo Israa'iil sidoo kalena dadka la sii deynaya ayaa waxa ku jira haween iyo caruur iyo dad da' waxaana dhinaca Israa'iiliyiintuna iyagana la filayaa in markaasi ay ka baxaan dhanka bari iyagoo dhinaca kale aagaga kale markaasi aysan ku badnayn ay tagi doonaan dadka shacabka waxaana la qorsheenayaa wajiga labaad in markaasi iyadana sidoo kale guud ahaan ay ka wada baxaan Israa'iil magaalada Gaza iyo sidoo kale Falastiin iyadoo markaasi la tilmaamayo in muhiimadda la siin doono markaasi in gargaarka la fasaxo sidoo kalena la haystayaasha ugu dambeysay markaasi la sii daayo wajiga ugu dambeeya ayaa waxa la leeyahay waxa uu noqon doonaa markaasi in dib u dhis lagu sameeyo magaalada Gaza taasi oo la leeyahay waxay qaadan doontaa sanado badan waxaana aad markaasi loo hadal hayaa in maxaabiista Xamaas ay hayso ay intaasi ka badnaan karaan waana waxyaabaha dadka qaarkood shaki gelinaya ama su'aalo aan wali laga jawaabin oo jira oo waxa kamid ah marka la haystayaasha nool iyo kuwa dhintay amaba hadii ay Xamaas og tahay halka ay ku dambeeyaan dhamaanba kuwa aan xisaabta lagu darin su'aalaha la isweydiinayo ayay ku jiraan markaasi oo dadka qaarkood ay isweydiinayaan waxyaabaha ka soo kordho daawadayaal halkan ayaanu idinku soo gudbin doonaa hadduu rabbi idmo arrimaha Gaza iyo sidoo kale Israa'iil ka soo kordha magaalada Kiev caasimadda dalkaasi Ukraine iyadana waxa ka dhacay markaasi gantaalo saaki aroortii hore lagu qaaday kuwaas oo ay ku qaadeen markaasi Ruushka waxaana Kiev ay saaki ku waabriisatay dhawaqa alamka kuwaas oo loogu talagalay markaasi digniinada iyadoo gudoomiyaha markaasi magaalada Kiev uu ka hadlay arintani iyadoo sidoo kalena dhaawacyo ay ka dhasheen
ugu yaraan 4 qof ayaa dhintay waxaana dadka dhaawacyadu ay soo gaareen intaasi ay ka badan yihiin gantaalo markaasi Ruushka ay ku qaadeen caasimadda Kiev waxaana madaxda militariga dalkaasi ay sheegayaan in saaka hore ay ku waabreysteen dhawaqa rasaasta iyo sidoo kale gantaalada plastikada oo caasimadda ku soo dhacaya dadka ayaana lagu amray in guryahooda ay ku sugnaadaan oo aysan banaanka soo aadin degmo kamid ah magaalada caasimadda Kiev ayaa waxa la leeyahay waa magaalo inta badan ay ku taalo saakay weerarka halka uu ka dhacay baarar iyo sidoo kale hoteelo waaweyn iyo sidoo kale goobo ganacsi jaamacado waxaana ku badan markaasi ardayda sidoo kalena degmadan la weeraray ayaa waxaa la leeyahay qasaare xoogan ayaa soo gaaray oo saldhigyo ayaa la weeraray sidoo kale deegaano muhiim ah markaasi ayaa la weeraray halkan sidoo kale waxaa ku yaala jaamacado maqaayado iyo sidoo kale meelo dadka ay ku qaxweeyaan sida dadka qaarkood ay tilmaamayaan madaxweynaha dalka Ruushka iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Iran ayaa markaasi arrimo muhiim ah oo xasaasi ah gobolkan ku saabsan ka wada hadlay iyagoo markaasi tilmaamay in gargaar bini'aadanimo la gaarsiiyo Suuriya ay muhiim ay tahay waxa uu tilmaamay markaasi madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Iran Musa Pezeshkian in ay markaasi horumarka gobolka ay ka wada hadlaan oo ay diiradda saaraan arrimaha muhiimka oo ay saaxiibkoodii ku lahaayeen Suuriya ay waayeen Bashar al-Assad waxayna tilmaameen in haatan horumarka la rabo in ay gaarto Suuriya ay tahay colaadda in dib markaasi dib u heshiisiin loo sameeyo Putin ayaa ku nuxnuxsaday markaasi in ay leedahay in guud ahaan la xasiliyo xasaradaha Suuriya iyadoo la ixtiraamayo markaa madax banaanida iyo midka dhuleedba ay leedahay wuxuuna tilmaamay in Ruushka diyaar u yahay in markaasi gargaar bini'aadanimo uu gaarsiiyo Suuriya gudaheeda waxaana tilmaamay in colaadda dalkaasi si nabad ah loogu dhameeyo waxaana sidoo kale ay ka wada hadleen in markaasi dagaalada ka socda Suuriya gudaheeda la joojiyo oo dadka markaasi siyaasadda isku hayo ay miiska wada fadhiistaan waxaana la tilmaamay in gobolkaasi amaba wadankaasi Suuriya dhibaatada ka jirta colaadda iyo sidoo kale in dib u dhis u baahan yahay Ruushkan uu tilmaamay in qayb lixaad ay ka qaadanayaan arintaas sidoo kale waxa ka hadlay madaxweynaha Iran waxaana tilmaamay maadaama gobolkaasi uu yahay meesha ugu muhiimsan Suuriya saaxiibana ay ahaayeen madaxweynihii la riday Bashar al-Assad in iyaguna ay u baahan yihiin in markaasi amniga iyo sidoo kale gargaar bini'aadanimo iyo dib u dhiska Suuriya ay qayb lixaad ka qaataan iyadoo dhibaato markaasi laga dheereynayo dadka waxaana Ruushka inta badan la ogaa in arinta ugu muhiimsan ay tahay gobolkaasi Suuriya wadankaasi guud ahaantiisaba uu ka jiro burbur lixaad leh maadaama Bashar al-Assad diyaarada iyo sidoo kale ciidamadiisa uu isticmaalayay in lagu burburiyo guud ahaan wadankaasi waaga daawadayaal wali waxa daawanaysaan wararka caalamka hadii aynu aadno dhinacaas iyo dalka Ingiriiska guddiga baarlamaanka UK ayaa waxa uu ku booriyay marka dawladdaasi in ay aqoonsato dawladda Falastiin warbixin markaasi ay gudbeen ayaa jirtay oo arintaasi ka hadlaysa guddiga horumarinta caalamiga ee baarlamaanka UK ayaa ku booriyay dawladda Ingiriiska markaasi inay aqoonsato dawladda Falastiin shuruudaha laga rabana iyo sidoo kale waxyaabaha muhiimkana ay markaasi soo gudbiyaan la siiyano waqti oo markaasi talaabooyinkaasi lagu qaadayo guddiga ayaa soo saaray markaasi warbixin aad u dheer ah oo arimaha looga hadlayay iyo sidoo kale shuruucda ay jibiyaan Israa'iiliyiinta shuruucda ay jibiyaan markaasi Israa'iiliyiinta iyo sidoo kale xasuuqa ay u geysteen markaasi reer Falastiin iyo dhibaatada burburka lixaadka leh ee la gaarsiiyay markaasi reer Gaza waxayna tilmaameen in Falastiiniyiintu ay u baahan yihiin garab istaag iyo sidoo kale in ay helaan nabad waarta oo ay ku noolaadaan waayaha soo socdo iyagoo sidoo kale tilmaamay in dhismaha Gaza laga qayb qaato waxayna tilmaameen ilaa iyo 500 oo gawaari oo gargaar ah in la gaarsiiyo markaasi Falastiin Turkigu waxa uu dalbanayaa markaasi in guud ahaan Suuriya laga ciribtiro xoogaga argagixisada ee ka dagaalamaya dalkaasi waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in muhiim ay tahay in guud ahaan cagta la mariyo
kooxaha ka dagaalama dalkaasi Suuriya. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka hadlay waxa uu tilmaamay markaasi in muhiim ay tahay Suuriya oo nabad ah in la helo. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa carabka ku adkeeyay marka baahida loo qabo ciribtirka ururada argagixisada si nabad ah ama xooga, isagoo ka hadlayay markaasi shirweynaha sideedaad ee xisbiga cadaaladda iyo horumarinta AK Party lagu magacaabo kaasi oo ka dhacay markaasi magaalada Kayseri bariga dalka Turkiga. Waxa uu tilmaamay in Turkiga hadafkiisu yahay in Suuriya nabad ay noqoto, sidoo kalena laga ciribtiro guud ahaan dhammaan ururada argagixisada ee ka dagaalamaya Suuriya. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in qaab dhismeedka PKK iyo sidoo kale YPJ ay iyaguna guud ahaan cagta la mariyay, sidoo kalena ay ku dadaalayaan in markaasi dib aysan u soo noolaanin. waa hagaag daawadayaal, gabagabada barnaamijkeena ayaanu isla soo gaarnay. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan markaasi kusoo gabagabeynaya barnaamijka wararka caalamka. barkulan ayaad ka daawanayseen. haddii aad qaybtan dambe nala soo gaartay waad ku mahadsan tahay daawashada iyo la socoshada wararkeena.